2022 waxaan qaadnay tallaabo go'aan qadhaadh oo ahaa inaan hakinno mudaharaadkii silmiga ahaa aynu iclaaminay ay xaqa u lahaayeen taageerayaasha axsaabta mucaaradka ah ee ay u diyaargaroobeen annaga oo tixgelinay ergadii cuslayd ee reer Somaliland ee noo timi may ahayn rag la diidi karay nasiib darrase waa ay fashilmeen dadaaladii iyo isku dayadii dhexdhexaadinta ee ergooyinka kala dambeeyey sidaad warbaahinta kala socoteen waxaan uga mahadnaqayaa taageerayaasha axsaabta mucaaradka ah dulqaadkii ay muujiyeen muddadii ay socotay isku dayga waanwaanta iyo dhexdhexaadintu maanta waxaan rabaa inaan la hadlo shacbi weynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo cid kasta oo lexajeclo ka leh isla markaana danaynaysa arrimaheeda kama hadlayo horeeyaan iyada qoraal ku soo bandhignay dooda labada xisbi ee UCID iyo wadani khaas ahaan dhinacyada siyaasadda iyo sharciga marka hore dalkeena waxa ka jira dhibaatooyin culus oo tiro badan oo ay ka mid yihiin cabsida cunto yaraanta adduunka soo wajahday sicir bararka iyo maciishada oo cirka isku shareeray abaaraha riiq dheeraaday iyo dayaca ka muuqda bulshada korarka qiimaha shidaalka laydhka iyo saamaynta guud oo ay ku yeelatay nolosha muwaadinka maanta baska inta lagu raaco Hargeysa waa garanaysaa waa 3,000 ama 4,000 caburinta xorriyatul qowlka iyo saxaafadda madaxa bannaan oo maanta nahashka sii saaran tahay laanta afka Soomaaliga ee BBC ku tumashada xuquuqul insaanka oo harkaha goosatay burburinta hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland ku xadgudubka dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee Somaliland dhaawacidda wadajirka iyo midnimada shacbiga xaalad abuur sababi kala degenaansho la'aan iyo xasilooni darro tusaale ahaan hadalka xukuumaddu ku soo celceliso oo ah inaan aniga ama xisbiga wadani haysto ciidan beeleed arrintaas oo haba yaraatee aanay waxba ka jirin laakiin xukuumaddu ku xalaashanayso inay cid weerarto ama dhiig daadiso xaaladda la abuurayaana waa in xisbiga kulmiye oo ka mid xisaabta jira uu rabo inuu sifa sharci darro ah dalka ku sii haysto marka ay taasi dhacdo axsaabta mucaaradka ahi ma noqon doonaan daawadayaal foolxumada dhacaysa ka aamusa tallaabooyin badbaado ah oo qorshaysan ayay qaadi doonaan muranka siyaasiga ahi waxa uu soo jiitamayey tan iyo markii ay qabsoontay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee lagaga adkaaday kulmiye iyo xukuumaddiisa nuxurka muranka ah doorashada nuxurka murankaasi waxa uu ahaa doorashooyinka oo ku qabsooma waqtigooda taas ahaan doorashada madaxtooyada oo iyadu ugu soo horeysay waxaa shacbiga jamhuuriyadda Somaliland iyo caalamkuba markhaati ka yihiin in ubuucda muranku yahay labada mawqif ee iska soo horjeeda ee ah doorashooyinka waqtigooda ku qabsooma oo dastuurka iyo xeerarka loo hoggaansamo iyo mawqifka xukuumadda iyo xisbigeeda ah oo ah doorashana qaban maayo dastuur iyo sharcina u hoggaansami maayo